السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلي والكين مهدي ميعاد وقتي جامعة لقلي oo ardayda iskuulka sare ama liiseyga dadkii baaga qaatay ama iskuulka sare dadkii dhigtay waa xilliga jaamacadaha galiyay haddaba maanta waxaan isku day inaan ka hadlo maalin dhaweynayn wuxuu yiri mahdi miicaad oo shaqooyinka la qabanayo ama shaqooyinka maanta qof raba inuu qabto shaqooyinka keeba ugu wanaagsan ama kuwa online-ka lagu shaqeynayo ama kuwa aad isleedahay way lacag badan yihiin hore waa loo baran karayaa marka videogan maanta wuxuu khuseeyaa cid kasta oo rabtay maanta inay aqoon ama jaamacad inay gasho keebay geli lahayd may qof raba inuu shaqadiisan uu hayo inuu shaqo kale ku bedeli karayo يعني كبا سوقاد قف ayaa raba isagoo wax haya shaqo isagoo haya inuu shaqo labaad ku darso shaqadan intan shaqo aan ku soo diyaariyay maanta aan isleeyahay waa suuragal inuu qof ka shaqeeyo waa shaqooyin u dib yar ama remote ama adoo guriga jooga inaad ku shaqeyn kartid waa shaqooyinka maanta aan u baahnayn inaad biro aad tagtood ka shaqeysid waa shaqooyinka maanta lacagtoodu ay aad iyo aad u fiican tahay waa shaqooyinka aad maanta laga wala heli karayo internetka inaa laga barto maanta way adag tahay qof inuu yiraahdo physics ayaan rabaa inaan barto ama math ama xisaab ayaan rabaa inaan barto YouTube-kan ayaan ka helayaa ama meel kale laakiin dhowrkan shaqo aan ku sheegay maanta waa shaqooyin dhammaantood si dib yari aad u helisid iyadoo oo aad lacag ku helisid ama iyadoo oo aad bilaash ku helisid haddaba anigu sidaan isleeyahay waa sida lambaradan 1 2 3 4 5 kan aan sameeyay kama dhigna waa ka u fiican ama kama dhigna waa kuwa u xun laakiin aniga un baa lambaraanta sameeyay haddaba kuwa ugu horeysa bal ila eeg walaalkayo ka u horeeya ama walaashay ka u horeeya waxa weyn waa design designku waa cid naqshadaynaysa ama cid farshaxana farshaxanka waxaa u taqaanay qof intuu soo qaado guri ama meel sharaxay Soomaa maanta designka adduunka meel uu ka maqan yahay ma jirto mobile application-ka aad gacanta ku haysatid ama YouTube-ka aad ka daawanaysid ama Facebook aad ka daawanaysid intii la sameeyay waxay soo martay dad la yiraahdo designer waa dadka horta marka ugu horeysa wax loo dhiibo ee sameeya haddaba designku wuxuu leeyahay mashaariic fara badan ama designka laftiisa ayaa intaas oo shaqadood leh example aan isleeyahay waan wala fahmanaa waxa weeyaan ninka kooraanka ku shaqeeya kelmadda kooraanka walaalahayow anaga Djibouti mar horna waa la weydiiyay electricity dheh ama alkahraba ama electricity yani waxa weeyaan waa korontaha af Soomaaliga saasi koronto miidhaynaa saasaan u maleynaa walaalahayo kooraanku waxa weeyaan waa lightka okay taana waa af Soomaali kale weeyaan lightka aan shidanayno marka ninkan kooraanlaha waxa jira kooraanle gaari baa jira kooraanle asanseerkan ama mascadkan ama mandaradaha dhaadheer waxa lagu koro Soomaali fara badan baa comment lagu soo qoraa marka anagu Djibouti hadaan nahay bal waan isku dayaa inaan af Soomaali intii aan rabo intii aan karo inaan ku hadlo qaarka Djibouti markay soo baxay waxay yiraahdaan af Soomaali waa weyn baa ku hadasha marka garan mayna de Soomaalida sidii loo dhexdhexaadin laakiin isku dayay inaan dhexdhexaad noqdo bal marka aniga kooraanlii waa kooraan ka shaqeeyay uu fara badan yahay marka design kuna walaalahay uu fara badan yahay logo design baa jira qofkan designer-ka oo isagu wax kale kuma shaqeeyay logo ma ku design isla waxa jira qaar kale oo app designer la yiraahdo application-ka intay shirkaduhu ayna waxaan ku leeyahay ayna isticmaalin ay qofku leeyihiin no design garee waxaas oo dhan waxa weeyaan عشان si shirkadii ay u aragto application-ka la sameyn doono sidoo ay kaan doona ama sidoo muuqurux banaan doona kala kala bedel inta development-ka la geli waxa kale jisaasi like flyer designer waa qofkan idil waraaqadaha xayisiiska la arko waa dadka design gareey weyn oo isagu wax inta uu ku shaqeeyay design-ka laftiis ayaa hadana laba waaweyn u sii kala baxay UI design iyo UX design mid waxa weeyaan waa mid
waxaan la arkayo design garay imanka applicationka markaad arkaysid waa waajahadan hore ama facekan hore midna wuxuu shaqo ku leeyahay uun waajahadan aad samaysay bottomkan haddii buutoonka saa loo taabto wuxuu ku leeyahay customerku waa intaasuu arki waaya halkan ee customer ee xagan ka dhig bottomka casaankan iyo akhtarku iskuma soo baxayaan casaankan iyo yelowga rag idiloo caynkaasaa jira oo designer ah markaa maanta shaqadaa designka haddaad baratid adduunka meesha aad doonto adoo joogo waad ka shaqayn kartaa shirkadda international ama local ama meesha aad ka shaqayn kartaa waa shirkadooyinka maanta remote-ka aad iyo aad ugu soo fiican yaan ku dheeraan designka video horna waan kaga hadlay designka wuxuu yahay design kasta loo barto shankaygan youtube-kan ama facebooka waxyaabooyin fara badan oo designka ku saabsan waan ka hadla ta kale labaad waxa weeyaan waa development waa application ama application qofku inuu develop garay haddaba facebook applicationkan facebooka ama applicationka youtube-ka markii fikradda ninka ay ku soo dhacday markii hore horta gacantuu ku design gareeyey kadibna software buu ku design gareeyey figma adobe photoshop adobe xd wuxuu danawaad uu ku design gareeyey kadib marka designka laga yimid qof baa loo dhiibo lagu war applicationka haye ku dhaqaajiyo ka dhara yani application run ama application shaqaynas ha noqdo oo database-kii leh oo ku xidhmaysa database-kii oo wax soo saaraysa haddaba dadka waxaa sameyna waxaa la idhahdaa developer ama developerka laftiisa ayaa haddana usii kala baxa walaalahayo 3 waaweyn un baan odhan karaya waa app developer oo dadkan applicationka developer mar horena videorahan ka hadlay app developmentiga languageka loo isticmaalo waxaan kaana videora waan ka hadlay laakiin ninkani wuxuu ku shaqo leeyahay un inuu mobile developer noqdo mobile developer maanta waa shaqooyinka aad iyo aad muhiim u ah oo shirkadaha maanta internationalka dadkii maanta inta u fara badan gacanta waxay ku hayaan waa mobile marka mobile-kani ay shirkadihii oo dhan waxay rabaan inay application-kooda ama dukaankiisa inuu mobile application ka dhigo shirkadooyin fara badan markii dhawadan Hargeysa aan joogay iyo Boorama aan soo maray xayisiis fara badan baa ii soo dhacay kolba maxay ka shirkada sarifkan maxay ka caynkaas waxaas oo dhan waxa weeyaan waa shirkada idil oo raba in mobile application la sameeyo tii kale inuu xajistay web application waxa weeyaan shirkadu marka ay weyn tahay mobile creator ku saabsanaamaysa ilaa iyo web application bay galaysaa web application waxa weeyaan shirkadani waxay rabtaa xisaabki maxay contability ama accounting ama xisaabaadki wax u xira waa mobile iyo web application may waxay rabaan waa shirkad transport waxay rabaan kan iyo kan isku xiraan may waa shirkad hospital ah oo dhakhtar ah waxay rabaan wixii la soo galiye in laga arko waxaas oo mirna waxa weeyaan waa mobile application waana mobile developer kuna waxa weeyaan waa cidda adoo gurigaaga iska jooga ayaad shirkad u develop gareyn kartaa oo halka ka tusi kartaa oo halka ka arki karaan kadibna kharashaadkaaga wadanka aad joogta ay ku soo diri karayaan takala saddexaad waxaan waa desktop application kaasi bariya qaarkood looma isticmaalo berigii hore had iyo jeer haddaad doonaysid wax samaysid waxaad install gareynaysa application next la oranay sooma imaka dadka inta fara badan way yar yihiin cidda isticmaal inkastoo shirkada waaweyn wali ayna ka maqnayn laakiin haddana dadka u fara badan maanta isticmaalkeedu waa mobile ama web application laakiin desktop application ki nasaas way waa loo baahan yahay C# Java gi wixii lagu isticmaal .net wixii lagu isticmaalay iyaguna saas leeg wali way jirtaa haddana waxa kale jirta qaybta kale ee jirta waxa weeyaan maanta la wada garanayo aan laakiin laga faa'iideysan waxna waa digital marketing video horna waan ka hadlay waxay ka dhigantay digital marketing xayeysiiskii la garanayay ee la isku xayeysiinay idaacadaha bishaaro iyo wax aan ka sameynayna TV-ga mariyay maanta waxa effectigiisu uu ka weyn yahay ama dadku ay ka arki dadku ay haddii aad investment aad ku samayso xumeyn waa xayeysiiska Facebook iyo YouTube iyo Instagram shirkad baa maanta tahay shirkadani waxay rabtaa inay badeecadii ama alaabtii ay ibinaysay inay xayeysiisku waa laba
xayeysiis aad lacag bixinaysid oo Facebook lacag siinayso gaarsi aad leedahay iyo xayeysiis kolba alaabtii aad keentay inaad Facebook ga dhigtid kolba service ka aad haysid inaad Facebook ga dhigtid taana waa xayeysiis haddaba shirkadooyin baa jira maanta oo farabadan adduunka meel kasta jooga oo raba account-koogii Facebook iyo account-koogii YouTube iyo account-koogii Instagram iyo TikTok waxa danaada u manage gareeya u jeereeya u hagaajiya waayo waxaas waxa weeyaan iyagii waqti uma hayaan ama iyagii aqoon uma leh marka waxay rabaan cid u habaysa maxay ahayd shirkadii waayo shirkadu maanta intuu farabadan waxa ay social media-ga ay alaabtooda ugu xaysiiyaan waxa weyn waa meesha loo badan yahay maanta in la joogo maanta way yar tahay qof TV hor fadhiista way yar tahay wali way jiradad hor fadhiista laakiin it's very difficult in la arkaa ama dhalinyarta maanta ama cid doonta laakiin cid Facebook ku jirtay lama oran karayo maanta way yar tahay dhammaan yar iyo weyn Facebook lagu jira ama YouTube lagu jira marka saadaradeed shirkadaheena ka maqano Facebook iyo YouTube inay ku jiraan marka saadaradeed dadkii waxay rabaan wax u manage gareeya account-kooda Facebook iyo YouTube iyo TikTok marka haddii aad baratid adiga oo guriga iska jooga adduunka meesha doontiba joogo ayaad shirkadihii aad apply garanaysaa waanan kuu sheegi doonaa hadhow toole shaqooyin maa la apply garayaa iyo meelaha laga dhigto waan kuu sheegi doonaa in yarisu shaqooyin kale ee maanta wanaagsan ee adigoo guriga iska jooga aad ka shaqayn kartin waxa weeyaan waa translation wax kasta oo turjumitaan ku saabsan turjumitaankaaga laakiin afka kuugu horeeya wax lagu turjumaya ama wax laga turjumayay waa af Ingiriisi af Ingiriisi baa adduunka afkii la doon loo turjumaya marka af Ingiriisi iyo af Carabi haddaad taqaanid shaqooyin waad heli kartaa af Ingiriisi iyo af Turki haddaad taqaanid saasile af Ingiriisi af Faransiis af Ingiriisi af Soomaali garmaayo cidda loo shaqeynaya laakiin af Ingiriisi iyo wax kale waa inaad had iyo jeer aad raadisaa inaad af Ingiriisi aad luqad kale ku dari kartid dadka intaa garanaya maanta iyagoo gurigooga jooga remote ku shaqeyn karaya oo adduunka meesha dadka ka shaqeyn karaysa taay wax magic oo baahnaan maanaya iyadu waa luqadii oo la barnayo ta ugu dambeysay ee shanaadeen ku soo gabagabeyn waxa weeyaan waa research waxay ka dhigan tahay qof ayaa raba shirkadooyin ayaa rabta inay suuqa gasho suuq galitaankii ninkan waa kay wax ma ogo wuxuu rabaa badeecad inuu iibiyo maya mobile application ayuu rabaa inuu suuq galiyo mobile application kan shirkadaha sida saxda u bilaabay waxay sameeyaan research bay sameeyaan maxay eegayaan waxan aad soo wadid iyo waxa suuqa ka jira had iyo jeer suuqa markaad soo galisidna wuxuu qofku aad u aflaxaa waa inaad la timaadaa wax dadka ka duwan dadka ayoo dhan baa la diraaseeyaa oo la arkaa say u shaqeeyaan waxyaabooyin ka maqan ayaa taada lagu biiriya haddaad rabtid inaad wax sidooda si laag inaad samaysid there is no problem haddaad rabtid inaad dhar iibisid wax mashaakil ma dhar waa la wala iibiyaa laakiin dharka aad iibinaysid ayaad aragtay ninkaa dharkiisu inuu wanaagsaneyn ama ninkaasaad rabtay dadka sida ula hadlo ama ninkaasaad aragtay inuu dharku iibinayo dadku markay u yimaadaan iga celi karaan inuu noo celi marka adigu marka aad rabtid inaad business dhar inaad gashid waa inaad eegtaa ninkaay waxa ka maqan marka inaad customer-kaaga aad ku soo jiitaay waa maxay anu saasaan sameeyaa anu saasa kala yani waxaan imaka u soo qaadanaya waa kelmad yar ee ugu dib yar ee cid kasta wanta wala fahmi kartaa maxaad u malayn adiga oo online raba inaad ku shaqaysid adiga oo raba inaad macad samaysid adiga oo raba inaad school samaysid adiga oo raba inaad shirkad transport inaad samaysid adiga oo raba shirkadooyin waaweyn inaad samaysid marka haddaba qofkii wax loo sameynay maanta adduunkay dadku waxa ay furanayaan waa shirkad online ama local ha ahaatee laakiin maanta research wuxuu farabatay waxa weeyaan dadkii waxay rabaan inay shirkad online inuu furo online-kii ayuu rabaa inay shirkado kale oo siisa inay jiraan kara markaasuu qof buu ahaa garanayaa qof buu ku leeyahay kaalay waxaan ku siinayaa lacag baan ku siinaya suuqa iisoo daraasay ninkaay misuu lacagta siiyaa ninkaay muxuu sameeyaa waxaan kaas marka taana waxay u baahan tahay aqoon
youtube-kana waa laga heli karayaa aqoon ziyaado ood baratid unbay u baahan tahay koorasyaal international iyo academic iyo waxyaala caynkaasa uma baahno wejaan dad uga soo baxa wejaan laakiin adiga oona waxaysan waad baran kartaa waanaad ku shaqayn kartaa haddaba waxaayo dhan markaan kuu soo warshay walaalkayo maxaa adiga odhan halkee laga hela adigoon ma jaamicad oxford baa laga barnay adigoon intaa mise waxaan ku leeyahay ilaah bay tiiste mid jaarkayga oo af ingiriisiga yidhi waxaan ku dhigaa $500 baan u tagaa aan ka bartaa may waxaasoo dhan haddaad karisid ahlan wasahlan waa adiga karaanka haddaad jaamicado waaweyn u tagasid that's great wixii jeebkaaga laakiin waxaan kuu hubaa 99.9% waxaan oo dhan waxaa laga helayaa youtube-ka ayaa laga helaya isaga oo free waxaan oo dhan horta waxaad ku bilowdaa isaga oo free horta baro anigu kugulama talinaya marka ugu horeysa inaad ku bilowdid isaga oo paid laakiin youtube-kii baad waxoogaa ka aragtay waxaad rabtaa inaad aad iyo aad inaad ugu sii takhasustid baad rabtaa shirkadooyin fara badan oo waxaa jira Udemy mar hore waan ka hadlay shirkadda udemy.com waan ka hadlay waad gali kartaa lacagooga course by course baad ku bixin kartaa shirkad kale waxaa jirta aad iyo aad noo fiican oo Skillshare tina waxay ka dhigan tahay waa meel aqoontii la wadaagayo oo waad galaysaa account subscription maxaa monthly ama monthly ayaad bixinaysaa bishii baa lacag laga qaadayaa kadib waxa ku dhex jiro dhamaad bilaash ku daawanaysa marka waxa kale oo jiro kaga hadla mar hore Coursera oo iyana academic oo iyaduna ah lacago aad bixinaysid ama haddii waxaan kula aadabtid qaar free ina dhigtid waxaasoo dhan waa dhigan kartaa kadib marka aad dhigtid walaalkayo suuqu marka aduunku ku sugaya waa adiga iyo karaankaaga iyo dadka saad u iibnisid maanta videogan aan kuleeyahay waxa dhici karta bacda sanad ama bacda dhowr kadibna qof la saadlo yiraahdo maadiyo saaysan ka shaqsi bari hore rag aan maxayda Coursera anoo ka hadlay ayaa maanta rag maxayda ilaahay u barakeeyo ku shaqeeya oo meeshaas ay soo qoray marka waxaan rajaynayaa bal maanta markaan videogan aad daawatay inay mustaqbalka bal ay ku dhiirin galin doonto oo wax ka sameyn doontid oo ka shaqeysan doontid intaasaan kusoo gabagabeynay wax far badan baan lahaa ayaan doonaynaa inaan idhaahdo garan maayna wax ilooyin kale intaasaan kusoo gabagabeynayaa aad iyo aad waan salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh